بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa wax yar halkaan inaan kiliibkan waan ka soo duubayo uga faalloodo bahalkan naasood leh oo ay ku dhagan yihiin dhowr iyo tobanka cunug oo uu dhalay asaga ay ku dhagan yihiin. waxaan la yaabanahay oo aad ula yaabanahay baarinimada bahalkan uu qabo marka caruurtiisa ay nuugahayaan waxay maalan nagu tusaysaa hooyo macaan baarinimada ay noo qabto. 12 ilkood baa halkan ku dhacaya, 12 xagatina ku dhacaya, ma kala jecla cid xoog ku haysataa ma jirto. saasuu u dhacay dhag markaasuu mid walba naaska ka nuugahaya, markaasuu ruugahaya, markaas xataa dadkii oo meesha waxa ugu soo gambaday oo farihiisa ku taataabanaya oo naas siinhaya ilmihii yararka siinhaya dad ma kala oga waxay kala ogtahay malasaas isku dhacdo. taasna waxa keenaya hooyanimada keenaysa hooyo ilaahu ku darajee naaska markii la nuugahayo hadii xagatin lala dhacayo xatii ilka lala dhacayo xataa ma kala oga waxa intaas keenaya dhalmada qofkan uu maartay uu dhalay wax dhalay baa keenaya. marka waxaan rabnaa bal inaan bilmatalan waalidiinteena dhashay horta balaan u duceyno intiina dhashay aan u duceyno ilaahay ha darajeeyo ilaahay ha sharfo intaas iyo ka badan bay nagu soo hayeen sidaas ay noogu xoodanayeen xoodasha la yiraahdaa. markay saa isku dhigtay waxa la yiraahdaa xoodasho ma is dhaqaajinayso way iska xoodantahay mar allaala markii saas ay cunuga uga fuqo bay waxay noqonaysaa jawi kale ay galaysaa. sababta jawiga hadda ay ku jirto ma ahan jawi la malayn karo, ma ahan jawi la suuraysan karo, ma ahan waa jawi ka duwan jawiga ayada bulaadnimadeeda ka duwan waay. dhiigeedii baa baxaya waxaana keenaya dhacaankeedii iyo dhiigeedii oo ayaa cunugu cunhaya. markaasa xididadii dhamayd baa isku furmaysa oo dhacaankeedii ay dhuuqahayaan. marka jawigaas marka ayada ay ku jirtaa hooyo markay jawigaas nagula jirto annaguna aan markii aan aragno aqaaqa iyo dadka maarta caasiyaasha ah waalidkii ay ku dhahayaan markay intay weynaadaan oo ay naaga iyo xataa ragga qaar baa naaga ka raaca naagaha qaar naaga ka raaca niman ka raaca oo ay ka dad baa ka cararo hooyo ka taga. marka noocaan baana la ku soo koriyay jawigaas aad arkayso bahalkaas waalid dadkaaba ka sii aqli badan oo xasaasiyad iyo maartay ixtiraam sii badan kanu marka ixtiraamka uu leeyahay dad ummadda dadka ka ixtiraam badan. marka walaalayaal hooyo aan u duceyno insha Allah. maanta waxaan aad u soo xasuustay dhibaatada hooyo qabta markay naaska nuujinayso. marka aan u duceyno insha Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.